aad baa u mahadsantahay su'aasha aad weydiisay murashaxa xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi sida aad ogtahay ama aad la socoto waxa laga yaabaa dad badan inaan ogeyn guurtida inuu tago ma aha arrin campaign ma laakiin wuxuu ka tirsan yahay guurtida waa xubin sharaf sida uu dastuurku dhigayo wuxuu ka mid yahay xubnaha sharafta ah ee sida madaxweyne ku-xigeenadii wadanka soo maray madaxweynayaashii soo maray gudoomiyaashii baarlamaanka ee soo maray xubnahaas oo dhami waa xubno sharaf weeye golaha guurtida ayaanay si toos ah u galaan isaguna taas buu ka mid ahaa waxaan u tagay shaqo uu leeyahay oo ay doodna uu leeyahay waxaanu xubin sharaf waxaanay lahayn oo qura gacantaag ma laha marka codka la qaadayo laakiin waxa kale ee activity ee golaha laga qabanayo uu ka qaban karaa xubin sharaftu way ka qaban kartaa sida imika aad ogtahay madaxweyne ku-xigeenno badan baa jooga oo Somaliland oo xubin sharafka madaxweyne daahir yaala jooga oo xubin sharafka gudoomiyihii kale baarlamaanka soo maray baashe maxamed faarax baa jooga oo isaguna xubin sharafa cabdiraxmaan cira ayaa isna jooga oo xubin sharafa marka sidaas uu yimi sida uu maaha wasiirka arrimaha guduhu u qaatay inuu markii uu sawirka arkay inuu guurtida cabdiraxmaan tagay inuu isaguna moodo in meesha wax ka socdaan hawshaasi ma aha hawl anaga noo taala golayaashu waxay isu gudbinayaan iyo xeerarka golayaashu ay ka dhex marayaan maaha anaga hawl noo taale waa hawl iyaga golayaashu sidii processkoodii sharciga ahaa iyaga wada shaqayntoodii ay ahayd unbay iyagu u wataan waxooda arrin maaha xisbiga wadani uu maartay dabada ka riixayana maaha waa arrin caadi ah waa mooshin waxa weeye mashaariic sharci oo meesha uu maraysay marka sidoo cabdiraxmaan u tagay golaha guurtida waa xubin ka tirsan golaha guurtida dood leh hadee xogmaayo shaqada golaha wax ka qaban kara sidaas uu tagay laakiin sida qolada ay u dhigayaan maaha wasiirka arrimaha gudaha meesha tagay soo kama tirsana xubin sharafna kama aha diwaa wasiirka arrimaha gudaha uu tagi karaa laakiin waxaanay u muuqataa ficlan aqoon darrada xisbiga kulmiye ayay ka mid tahay in qofka markay meel ku arkaan inay yiraahdaan hawl buu wadaa laakiin waxaanay ogeyn inuu ka tirsan yahay golaha arrintaas weeyaan wax kale oo maartay meesha ku jira ma jiraan waa xubin ka tirsan golaha guurtida ka shaqaynaysa dood leh wixii sharcigu ka reebayna aan lahayn sida gacantaag oo kale marka food la qaadayo kale aad baa mahadsan